Ayaan Dhalad oo kamid ah gabdhaha baraha bulshada caanka ka ah sanadihii dambana ku jirtay ganacsiga ayaa soo kordhisay goob cusub oo ay isku qurxin doonaan ragga iyo dumarka labadaba waxaana ka shaqeynaya dhaqaatiir isugu jira Soomaaliya Canab waa tahay markaana bal waxaan kelmadda ugu horeysiinayaan ku soo dhaweynayaa Rasmi Rays oo ah gabar weyn oo caan dhalay oo aad garanaysiin bal kelmadeeda Rasmi ما شاء الله marka koowaad waxa salaamaya dhamaan asxaabta qaaliga ah ee halkan ku sugan ee maanta saan u soo buuxisay furitaanka ama ka soo qayb galka walaasheen Ayaan Dhalad aniga waa eedaday laakiin walaasha iskaraam maadaama dad badan oo walaalaheed joogaan horta waxa la yaab waxyaalo badan oo u baahneen hadaan hareereen Nairobi ayaan nagu soo kordhisay ayaan aad u mahadsan tahay ana already kole snapka waa ka daawateen shaqada la soo kordhi mid kamid ah waa sii bilaabo ma fahanteen marka waxa kula ayaan hambaliyo horumarkaaga waa horumarkeena markasta garabkaaga nahay kan iyo ka sii badan businesskaaga koowaad iyo kii labaadba ma aha kan iyo kii saddexaad kuwa badan oo waxyaalo nagu cusub ku rajeynayna qurux badan quruxaan u garaacday aad bay u mahadsan tahay walaasha Rasmi Rays markana waxa garabkayga taagan Samiixa Khaliil boqorada qosolka gabadha naga bareejaysan ajaanibta oo 2 milyan iyo hodhodoodaha 2 milyan Samiixa Khaliil soo dhawow waa mahadsantahay horta mali maqlaaya ma sha Allah horta waan salaam asxaabteed meel bad kala joogtaan aniga Samiixa Khaliil aniga ayaan mar hore u sheegay ayaan waa in adeertay macaan oo jecelahay horumarkeeda run markii laga hadlana naagta dadka business wuxuu yahay barta waay markii run laga hadlo business wuxuu yahay naagta dadka barta waa ma fahamtay waxaan ku leeyahay lugtaada sii socoto ma fahamtay horumarkaaga waa jecelahay hor u soco mar walbana Mrs Unique in lagu bixiyo ahayd mar walba wax unique ah wax dadka wax u taraayo gabdhaha wax u taraayo dhalinyarada wax u taraayo la imo waa tahay hadan waxaan balkamada siinayaa Queen Canab oo kamid ah gabdhaha aalada gacanka ka isla markaasna maanta ka soo qayb gashay furitaanka cusub ee businesska ay soo kordhisay walaashan Ayaan Dhalad hay kamid ah maanta waxa ka soo qayb galay furitaankii klinika Ayaan Dhalad hormar waana ku rajeenayaa waxa tahay role modelkeena aan ku daysano dhiirigeliyayga siiba aniga ma fahanteen waa qofka businesska igu soo dhaweeyay oo igu dhanaaya Canab ka istaag shaqayso thank you akaga abaalnaqaya mar walbana oo ku sheegaya qofka libintiisa loo maqariyo ana dadka ku qarinaay miihi soo marka qalbi wanaagaaga iyo naxariistaada iyo wanaagaaga inaan qalbigaaga xaasidnimo ay ku jirin mujida halkan ku soo gaartay iyo duco waalidna waa qabta ma fahanteen soo waxa ku dhahayaa abaayo hormar wacan anagana kugu soo daysanayna ma fahanteen wax cusubna aniga waa liga sugaaya mar dhow waa la qorqori doonaa wax yar dhirna waa ligu dari doonaa kaminsun maxaa la dhihi jiray hambaliya ku dhahay abaayo kun iyo kow jeer adaa ku taagana mar walba waa ku taaganahay love you mommy waa tahay markaan waxaan soo dhaweynayaa Ayaan Dhalad oo aan leeyahay mar walba hadaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed oo ku garab taaganahay waxaad noo tahay role model aniga wali dukaankii la ima furnin laakiin haddan sugayaa waxaan leeyahay haweenkii garashadooda adduunka lagu hagaahaliyay sanbay dhalaan qaranka ayaga oo hiila dhaftooda lagu hurdaa Ayaan Dhalad soo dhawow hadlo idin sheego kulay waxa idin ku soo kordhiyay idea iska yar oo ah quruxda dumarka quruxdeena waa ku wada jirnaa like waxaas iri bal gabdhaha waxaan ku soo dar marka waxaan furnay clinic and spa waxaan qabanaynaa maxaa la dhahaa waxyaabo badan aan qabanaynaa laakiin gabdha bis ma ahaan waa rag iyo dumarba maxaa la dhahaa waxaan sameeynaa maxaa la dhahaa IV drips vitaminada la isku shubaayo haddii aadan taas rabin waxaan sameynaysaa tablet yaheena oo vitamins ah oo company-ga waxa waaye original yahay oo from UK tablets ka salaqaysa rag iyo dumarba waa isticmaali karaan waxaan sameeynaa eye filler hadaa rabtid in indhaha lagu buuxiyo hadaa rabtid bishmaha lagu buuxiyo hadaa rabtid in wajiga ka cooranta botox lagu sameeyo dhakhtarad hindiya u tababaran oo waxa waaye experience badan haysataa nolol joogto ilaa 15 years aan shaqeynayay bay tiri waxaa noo joogto kale hadaa u baahan tahay lipstick in bishmaha lagaaga bedelo kalarka gabar u tababaran sunniyaha sidoo kale rasmi loo sameeyay maanta hada u baahanta sunniya qurux badan oo tin ahaan lagu sameeyo gabar ayadana sidoo kale bas shahaado ka wata jirto oo sameynayso waxa sameeynayna kale Moroccan bath scrapio original maxaa la dhahaa herbal ah oo steamina facial kian sameeynayna asagana facial sameeynayna ma aha facial ka caadiga ah product Korean product ku sameeynayna marka waxa idin leeyahay rag iyo dumarba ii soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada insha Allah ki wax badan ka faa'iideeyaan noqonaysaa Okay, so fillers is a form of enhancement of beauty and it's mainly used to enhance muscle subluxation. So the
common word for subluxation is sagging of muscles. So mainly, why we use fillers is to the fat. So you notice that sometimes some people, you may develop drooping of your fat pads, and you know we have fat pads all over our skin. Underneath the skin there are fat pads. So the places where the fats can droop is where we need the fillers. So the most important thing to know about fillers, you have to consult the dermatologist, and when it's decided that you are actually a candidate for fillers, the things that you look forward to is that you may have your fillers done and you get the general what you'd expect, like good results, and mainly it's a more youthful look. So you look more young and you also look brighter, and also if you combine together with skincare, your skin will glow more. So the things that you also should be aware about is that fillers out there are you can get fillers that are not the right product, in quotes, like those that are not original, and if you do not have the original ones, of course you can get the desired effect not coming out well, or even you can get something we call a contact dermatitis, whereby your skin now reacts to the fillers. So you're all welcome to seek consultation and find out if you're a candidate for fillers.